ay dawladdu bixinayso waa laga qaadan karaa qadiyada qofku inuu soo sharaxo marba loo ogoliyo waa markuu dadka u wanaagsan yahay hadii aanu dadka u mudnayno isagu aanu ka ugu awoodiyo amaano badan ahayn inuu meelihiisa iska joogo way isagoo aan ehel u ahayn inuu isqadimo qofku shariicadeenu ma ogola nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam arintan mas'uuliyadda qofka codsaday uma dhiibno daan muslimna abi muusa al-ash'ari asxaabiga layra laba nin oo ehelkiisa abu rasuulka u keenay sallallahu alayhi wasallam wuxuu moodayay inay nabiga booqanayeen hadiidkii sunanka saxiixa ku sugnaa inay nabiga soo booqanayaan buu moodayay markay nabiga u yimaadeen u balaa shaqana si muddo aamusnaa markii dambe uu la hadlaa wuxuu yiri abi muusa maxay kula tahay adiga maxay la tahay buu maan ogeyn inay arrinkan la socdaan nimanku salaamayeen baan moodayay haddaba uma dhiibna buu mas'uuliyadaha iyaga qofka codsade adigu dhaqaaqo Yamantag adigaaga aamusaneen waxba ay weydiisan baan mas'uul ka dhigaya iyagiina halkiiba ayaa ay ka dhaqaajiyeen marka taasi runtii hawsheeda ay leedahay dadkuna inay soo qadimaan qof aan xilka ehel u ahayn oo golayaasha lagu soo riixay mas'uuliyadaha wuxuu dambi galo dhan uu la qaybsanaya qofka soo riixaa haddaad ummadda hor keento oo aad lacag ku bixiso oo aad soo sharaxdo mid aad qabyaalad ku wado oo ducafada kamida oo reerkiina oo jaahila waxa la wuxuu kharbado dhan qiyaamaha sida isaga lagu qabsanayo ba adigana lagu qabsanaya leena uu musaacidkiisa iyo gargaarihiisa ahay waxaana furtay marxaati beena ila marka aad codka ugu ridayso waxaad leedahay hebel waxaan ka marxaati kacaya inuu yahay kii mudnaa idin wadi lahaa been baad ilaahay iyo ummadda u sheegtay waxa la wuxuu kharibo dhan aad lagu haystaa iska ilaaliya bahalkii codka la oran jiray codkii warqadii yareed ku ridaysay islahayd ka reerkiina maanta kaga fuji aakhiru ma naar lagaaga fujinaya marka arintaas waa arin adag oo dhibkeeda la runtii waxa kale iyaduna ka sii dhib badan dadka mas'uuliyiinta ah xilka doonaya aynu lacagta weydiisanayno ama odayaasha ama bulshadu ay oranayaan de aan ku riixnee oo aan kursiga kugu baritaarnee noodhi boqolaalkun baa laga cunaya goodho markuu isagiina dul baxo ayuu leeyahay xajista boqolaalkii baan rabaa boqolaalkii ay iga cunteen ayaan aniguna dib u soo celinaya warmee naga daaya wax noo qabo wala xisaabtamaya adiga kolkii hore ka cunaysna uu ku cunaya wala iska xajisato marka si sax ah in loo wada socdaaba muhiima oo ummadu wadankooda iyo ummadoodu waa jus kaliya qayb kaliya way bulshadu oo muslimiin oo walaala cid hagaajinaysa wadanka adigay ku wanaajinaysa maslaxadaada ay wadaa marka qofka waxa loo eegayaa awoodiisa amaanadiisa aqoontiisa intaas lagu soo saaraya haga sharciga marxaati beena in la furana maaha campaign qofku aanu ehel ahayn inuu galana maaha adduunka lagu bixinaya halka ayaa la iska dhigaya marka rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi qofkuna hadaanu been isu sheegay wuxuu yahay uu yaqaana marka qofka mas'uuliyadan ehel u ahay ummadda si uu badbaadiyo diintooda iyo dunyadooda iyo dalkooda uu isu taagi dadkuna way ku riixi karaan hadaanu ehel u ahayn oo yahay ka aynu soo sheegnay dadka lu goynayana isaguna inuu halkiisa iska fadhiyo way Allah hanuuniye dadkuna inay soo qadimaan oo hadhowna laga qayliyo ma banaana taas wallahu a'lam